بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ومahadsantiin haddaanu fiirino war degdeg ah oo hadda naga soo gaaray dalka Haiti ayaa waxa uu tilmaamayaa in madaxweynaha dalkaasi gabi ahaanba la dilay oo markaas ay dileen burcad sidoo kale waxa dhacdadaasi ku dhaawacmay marwada koowaad ee dalkaasi oo ah madaxweynaha gabadha u dhaxday oo markaas dhaawac halis uu soo gaaray waxa lagu weeraray hoyga uu ka degan yahay dalkaasi Haiti sida uu sheegay warbaahinta dalkaasi ka soo baxday ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ah ee dalkaasi Haiti lama ashaacin cidda dishay balse waxa la sheegay in koox markaasi ku hubeysan hubka qoryaha fudud in ay soo weerareen dhacdadan ayaa waxay dhacday saacad ka hor sida ay warbaahinta caalamka oo gebi ahaanba qorayso madaxweynaha dalkaasi Haiti Jovenel ayaa la sheegay in markaasi baryahanba uu saska qabay markaasi kooxo u soo hanjabaya balse lama cadayn cidda dishay wararkan iyo warar kale oo la xiriira madaxweynaha goordhow ayaan markaasi warbixin ka diyaarin doona aan soo baahin doona sidoo kalena dalkaasi Haiti waxaa ka jira arrin guux la xiriira markaasi in la afgambiyo wadankaas oo dhan oo markaasi ay la wareegaan dad gaar ah warar kala duwan oo markaasi cajaa'ib ka soo baxaya balse waxaan u dhigan doonaa warbixin dambe oo aan markaasi ku falanqeyn doono sida loo dilay madaxweynaha iyo sidoo kale cidda ka dambeysay waxaa jira ra'iisul wasaaraha dalkaasi oo markaasi bayaan soo saaray inuu sheegay in madaxweynahaasi uu markaasi dhintay sidoo kalena dhaawaca waxaa lagu sheegay in marwada markaasi loola cararay dhakhtar balse iyada marwada lafteedu ay dhaawaceedu uu aad u culus yahay wararkaas iyo warar kaleba waxaan soo dayn doonaa haddii Allah awoodda la ka dhigo daqiiqada kadib insha Allah taala